بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وبعد. ويقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. walaalayaal, waa xalqadeenii labaad ee aan uga hadlaynay silsiladaheenii tixanaha ahaa oo aanu ku soo qaadan jirnay bishan ramadaan ee barakaysan si aanu uga faa'iidaysanno. waxaanu hore muxaadaradan ballanqaad aan uga samaynay xalqada labaad inaanu uga hadli doono qaybtii labaad ee fiqhu siyaam ama soomka axkaamtiis. gaar ahaan waxay noo maraysay nawaaqid asiyaam, waxyaalaha soomka buriya. waxaanu soo qaadanay aljimaac, ninku hadduu xaaskiisii uu u galmoodo, waxaanu hore u soo qaadanay inuu kaas uu yahay akbar nawaaqid siyaam, waa kan ugu weyn oo soomka buriya. maxaa yeelay nawaaqidka waxyaalaha kale soomka buriya, ninka hadduu xaaskiisa uu u galmoodo wuxuu uga duwan yahay, isagu soomkiina wuu buray, midda kale dembina yacni qofkaasi wuu galay. maalintaa inuu soo qadeeyana waa waajib. waxaa kaloo intaa dheeraad ah kafaarana waa lagu leeyahay, sida hore aan usoo faahfaahinay 2 bilood oo xiriir ah oo hal maalin uusan afuri karin waa lagu leeyahay. waxaa kaloo waajib ku noqonaysa inuu rabbi uga toobad keeno subxaanahu wa tacaala khaladka uu sameeyey. haddii 2 bilood uu awoodi waayo xanuun iyo wax la mido ay jiraanna waxaa waajib ku noqonaya inuu 60 miskiin walba uu siiyo 1 koombo oo raashin ah oo aan shiidnayn oo ah xabbi saliim. nuqdada kale oo muhim ah oo khusaysa yacni mowduucan jimaaca khusaysa isaguna nuqdadaasi waxay tahay qofka saa'imka ah oo sooman, maadaama la yidhi jimaacu waa ka xaaraan oo maalin ramadaan ah xaaskiisa lama jiifan karo, uma galmoon karo. hadduu u galmoodana waxa ka laasimaya waajibka aanu hore u soo qeexnay. xukunku muxuu yahay dhunkooshada marka? qofka sooman xaaskiisa ma dhunkoon karaa oo ma la faraka cayaari karaa? faraka cayaar aan jimaac iyo galmoodka aan ahayn ma la samayn karaa? hadduuse sameeyo oo biyo ay meesha ka yimaadaan oo gabadhii ay biyo ka yimaadaan ama ninkii ay biyo ka yimaadaan, biyaha waxaan ula jeednaa shahwada ama manida, xukunku muxuu noqon? horta koow waxa weeye gabadha iyo wiilka isqaba inay faraka cayaar sameeyaan oo ay isdhunkoodaan waa karaahiyo weeyo. waxaa markaas soomku ma burinayso haddii wax biya ama mani aysan ka imaanin, soomku ma burinayso faraka cayaarka maalinta ramadaan, laakiin waa karaahiyo. waxaa ka nusqaamaya ajirkii uu heli lahaa ayaa ka nusqaamaya. waxaase jiray xadiis imaamu lbayhaqi raximahu llahu tacaala kitaabkiisa uu ku wariyey assunan اlkubraa oo kala qaaday nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu kala qaaday qofka dhallinyarada ah iyo qofka waayeelka ah. oo xadiis caaisha waxaa jiray ana rasuula اllahi sala allahu calayhi wasalama rakhasa alqublata lishaykh, oo qofka waayeelka ah inuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam u rukhsadeeyey inuu xaaskiisii maalinta ramadaanka uu dhunkoon karo. laakiin wanahaa canha shaab, umuna caaisha waxay leedahay qofka dhallinyaradaana nabigu waa u diiday. nahyigaasna culimmadu waxay ku xambaareen nahyulkaraaha in loola jeedo, oo qofka dhallinyarada waa karaahiyo in xaaskiisa uu la faraka cayaaro ama uu dhunkoodo maalin ramadaan, laakiin qofka odayga ah ama waayeelka ah way u bannaantay. sababta qofka waayeelka iyo ninka dhallinyarada loo kala saarana waxa weeye qofka waayeelka ahi uu iscelin karaa maadaama khibrad weyn ama uu maaragtaahay khibrad weyn uu ku leeyahay jaanibka haweenka, yacni shahwo fududaynaysa ama dedejinaysa ama gaarsiinaysa inuu xaaskiisa ku dhaco oo looga baqi maayo qofka waayeelka ah. waxaan kaloon looga baqaynin qofka waayeelka ah in ay biyo ay hore uga yimaadaanna yacni looga baqi maayo,
laakiin ninka dhallinyarada maadaama mowduucan guurka ah uu ku mamman yahay oo mamanaasho weyn uu u qabo laba arrimood bay ku iman karaan. waxaa ku iman kara inuu tarax tago oo farakacyaarkii iyo dhunkooshadii intuu ku tarax taro xaaskiisii uu galmoodo oo dhib ka weyn meeshaasi uu ka dhaco. arrinta labaad meesha ka dhalan kartaa waxa weeye in maadaama hamuun ziyaado ah hawshan uu qabo in biyihii ay ka yimaadaan oo soomkii sidaas uu uga buro. ولذلك حديث البيهقي سداسا يعني ونبي وكلا قاضي صلى الله عليه وسلم قفك وايلكا iyo qofka dhalinyarada ah hadii aan marka u soo laabano nuqdada ah soomku ma ku buraya mise ku buri maayo. haduu qofku xaaskiisa uu la faraka ciyaaro maalin Ramadaan mani aysan ka imaanin labada dhinacba wiilka iyo gabadha wax soomkii yani nawaaqid ah oo ku dhacaya naaqid ah soomkii uu ka burayo malahan. haddii laakiin biyo ay ka yimaadaan oo mani ay ka timaado gabadha iyadoo ninkeeda la faraka ciyaaraysa ama wiilkii isagoo xaaskiisa la faraka ciyaaraya mani ay ka timaado soomkii halkaas ayuu ku buray laakiin wax kafaara ah oo laga doonayo male. waxaa laga rabaa maalinta inuu dib u soo qadeeyo ayaa markaas waajib ku noqonaysa laakiin kafaara iyo raashin kale lagama rabo. waxaa kale oo kamid ah waxyaalaha nawaaqidu siyaam ah ee soomka burinaya istikhraajul mani qofku inuu mani uu iska keeno بأي سبب من الأسباب أسباب تدونه هي سجكينه هدو سئول كعة أو كسأ مني سجكينه تصارها وحو سجكينه كعنتيسة واستخراج مني أو حرامة كعنتيسة بيه سجكينه يسوق صومن أما حاس كيسة أيوب بيه سجكينه حاس كعنتيسة أما جير كذا مال كمية أيوب بيه سجكينه ويدنا وحي كمية أيوب حيالها الصوم وكبر أيوب قف كاسنا وكدن بابيو. النقطة كله عن ربنا إن تابنا ما أنك هذا إنه فقه وسيام كمية وحوي الإنزال من غير عمد قفك هدي من يكتم هذا ويلك يا قبل يسومنا لكن أوسن أكسن ومن إذا أسوي كس أوسن يسجى كيرين حكم كده محين نقل تاسو وحوي واحد بعتها وصوم كيس إيجارسين يسوم ملهم تصالحان قفك دنيا ردها هو فكري حاس كيسي وكفكري naagtii ayuu ku fekeray sidaasaa maniyu uga yimaadeen ama gabadhii way fekertay iyadoo hawl ama maaragtay ninkeedii ayuu ku fekertay hawl la wada ay maskaxda uga fekertay sidaasaa biyo uga yimaadeen ama maniyu uga timid gabadhii wax soomkii uu ku burayo taas ma laha maxaa yeelay kas wax uga yimid ama farakacyaar uga yimid ma aha waa wax fikir maaragtay uga yimid sidaas awgeed soomkii ka buri maayo sidaasayna yani qabaan jumhuur alculamaa oo kamid yahay saxaabada qayb badan ee kamida ay kamid yihiin taabiciintii sida Sufyaan ath-Thawri iyo Jaabir ibn Zayd iyo Abu Thawr madhabka Imam Shaafici rahimahullahu ta'ala isaguna sidaas ayuu qabaa. waxa kale oo iyaduna nuqdada la xiriirta ay tahay munaasib oo ah qofkii bil Ramadaan maalin Ramadaan isagoo hurdayo maalin ah hadduu isku janaaboodo intuu riyoodo ninkii ama gabadhii ay riyooto oo sida mani labadoodii uga yimaadaan xukunku muxuu noqon taa xukunkeedu waxa weeye wax dhibaato ah oo soomkii way u geysanayso manida isagoo qofku hurdayo ka timid ma lahan maxaa yeelay manidani qofku markay ka imaanaysay wuxuuba ka baxsanaa xuduudu takliif mukallafba ma ahayn qof shareecadu ay yani mukallaf ka dhigtay maba ahayn oo caqligiisa iyo dareenkiisa iyo maskaxdiisuba way maqnayd oo waa hurdaayay oo marka wuxuu soo gali dadkii marfuucul qalamka ahaa oo qalamkiisa yani laga koryeelayo nabigu sallallahu alayhi wasallam uu ku yiri xadiiska saxiixa rufi'a al-qalam an thalath saddex qof waxba looma qoro saddexda waxa ku jiray an naa'im hatta yastayqid qofku hadduu hurdayo ilaa uu hurdada ka soo tooso waxba looma haysto wuxuu sameeyo intuu hurdada ku jiro marka qofkii hadduu intuu hurday riyooday maalin Ramadaan biyo ay sida uga yimaadeen ninkii ama naagtii wax Ramadaankiisii ama soomkiisii dhibaato ah oo arintaas ay u geysanayso ma lahan. waxa kale oo iyaduna nuqdadan arin la xiriirta ay tahay haddii qofkii wiilkii ama gabadhii labadii isqabay lamaanaha ahaa habeenkii hadday jimaac sameeyaan oo habeenkii ay isku galmoodaan ilaa habeenkii Ilaahay u baneeyay subhanahu wa ta'ala bisha Ramadaan habeenkeeda Ilaahay u baneeyay cuntadii cabitaankii jimaaci intaba Ilaahay u baneeyay subhanahu wa ta'ala
labadii isqabay habeenkii hadday isu tagaan laakiin isla habeenkii aysan qubaysan oo salaadii subax lagu adimay iyagoo sidii janaabo u qaba oo salaadii subax markay dhalatay ka bacdi uu qubaysto qofkii oo janaabo ay ku soo gaarto bacda tuluuci alfajri xukunku muxuu noqon taas iyaduna wax dhibaato ah oo soomka u geysanayso malaha maalmaha habeenada ramadaanka haddii ninka iyo naagtu ay isu tagaan isla habeennimo inay qubaystaan waa sida wanaagsan oo sunno ah laakiin haddii hurda ay la tagto oo salaadii subaxa lagu adimo oo salaadii subax markii la adimay ka bacdi hurdada ay ka soo toosaan oo ay subaxii iska qubaystaan falaa ba's wax dhibaato ah oo soomkii taasi ay u geysanayso ma jiro maxaa yeelay xadiis waxaa jiray bukhaari iyo muslim labaduba ay warinayaan oo min xadiisi caaisha wa ummu salama kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yusbixu junuban min gayri xulmin huma yasuumu rasuulku sala allahu calayhi wasalam caaisha iyo ummu salama labaduba waxay leeyihiin maalmaha qaar ayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam uu waa beriisan jiray oo salaadii subax ay ku dhalan jirtay isagoo janaabo qaba nabigu sala allahu calayhi wasalam janaabadaasoo aan ahayn calwasaad ama ruyo uu ru'yooday nabigu sala allahu calayhi wasalam aan ahayn ee ahayd yacni janaabo jimaac ku timid markaa ka bacdina rasuulku soomkiisii ayuu iska sii wadan jiray sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa kaloo nawaaqidu siyaam ka mid a mataga si ula kaca qofku hadduu u matago matag intuu far isgeliyo ama caday uu isgeliyo uu sidaa uu u matago si kasa uu u matago iyaduna waxay ka mid tahay nawaaqidu siyaam oo soomkii meesha ayuu ku buray laakiin haddii matagu uu qofku ka soo fakado ama uu soo dirqsado matagu oo qofku intuu lalaboodo matagu uu yacni xoog uu uga yimaado oo isagu uusan iska keenin taasi wax dhibaato ah oo soomkii ay u geysanayso ma laha maxaa yeele taa waxaa tusinaya xadiiskii abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i iyo ibnu maaja intuba ay warinayeen oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu ku yidhi man daracahu lqay falaysa calayhi qadaa waman istaqaa'a camdan falyaqdi rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii matag iska keena ha soo qadeeyo yacni soomkii wuu ka buray maalintaana waxaa lagu leeyahay inuu dib ka soo qadeeyo laakiin qofkii matagu uu ka yimaado oo matagu uu soo diriqsado isagoon isagu iska keenin wax qada ah oo lagu leeyahay ma laha soomkiisuna yacni waa saxiix ayuu rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa kaloo nawaaqidu siyaam ka mid ah oo dadku inta badan ba ay wada ogsoon yihiin alطacaam washaraab qofku hadduu wax cuno ama uu wax cabo haba yaraada hal xabo oo masaga ah ama hal xabo oo sisin ah hadduu qofku laqo soomkii wuu ka buray yacni shardi ma aha biyaha wax badan inaad ka bato cunto badan inaad cunto shardi ma aha xabad sisima haddii aad cunto ama biyo yacni hal dhibicoo biyo ka mid a aad cabto soomkii halkaas ayuu kaaga buray waxaa muhim ah inaan isku baraarujinno waxyaalaha waxaa soomka burinaya wax walba oo joofka gudaha gala wax walba ee gudaha gala cunto iyo cabitaan kaliya ma aha tusaale ahaan waxaa ka mid ah ninkii ama gabadhii soomanaa daawa loo soo qoray oo dhegtaa xanuunaysa dhegtiiu goojo isaga sugay qofkiina wuu sooman yahay maalintii goojadii isku sugo goojadii uu isticmaalay soomkii waa ka buray maxaa yeele wax walboo gudaha gala cunto iyo cabitaan kaliya ma aha wax walboo gudaha gala ayaa nawaaqidu siyaam ah ee soomkii burinaya waxaa kaloo sidaas oo kale la mid ah tusaale ahaan qofkii sankii uu ka xanuunsanayay dhakhtarkiiba wuxuu usoo qoray goojada sanka sankii marka goojadii uu isaga dhibciyo isaga shubay soomkii wuu ka buray waxaa kaloo la mid a sidaas oo kale dadka bawaasiirta qaba bawaasiirka meeshii yacni xuqnay sameeyeen oo meeshii yacni dabadii ayay daawo isaga shubeen qofkii isagoo sooman maalin ramadaan dabadii daawo isaga shubay bawaasiir aan iska daaweyna uu leeyahay maalintii ramadaan soomkii waa ka buray wax walba gudaha u gudba oo yacni gudahaba gala soomkii waa kaa burinaya waxaa la mid a sidaas oo kale gabdhaha marka dhakhtarku uu wiisateynayo oo kale oo maalan tusaale ahaan gabadhii waa la wiisiteeyey faraa la geliyey far ayaa la geliyey iyadoo la wiisiteynayo soomkii waa ka buray maxaa yeelay
يعني شرعي إسلامك وحو قبا وحوالبا قدها قلا إن صومك وكابر رايو معها يعني عنتان يعبتان كليه معها ولذلك قبلها وحلو بان هدي إسداوينيان إن دخترك أي لحريران أو أي تغان يعني رمضانك مركو دمادو أما رمضانك كهر أما هبينكي إن دخترك يراهان ويسيتي لكن مالين رمضان هدي قبلو أي تكتو دختركو ويسيتيو أو فرق وقليو صومكي هالكاس أيو أقبري لكن وحا شرطي marka aanu leenahay oo shariicada islaamku ay leedahay wax walba gudaha gala soomkii waa burinay shayga gudaha galaya waa inuu gudaha u galo meesha uu ka galayo waa inay tahay manfad maftuux yani duleel ilaahay awalba hore uu u sameeyay markii duleelka ilaahay horeba uu abuuray ay wax ka galaan markaas way marka soomku uu ka buray tusaalahan dhigtii way dulasha indhihi yani waxana indhaha kuma jiraan waxa duleela oo kale sankii waa duleela oo kale dabadii way duleeshaa meelaha duleela haday wax ka galaan markaas way marka soomku uu buray ama hadii meel adigu aad jeexday oo duleelisay meel adigu aad duleelisay hore aan u furnayn hadii ay wax ka galaan ama aad wax iska geliso taas wax dhibaato ah soomkii u keeni maayo tusaale ahaan qofka sooman isagoo sooman ayuu wuxuu qaatay yani ibro qaatay yani waxa weeye waa faleenbada faleen buu isku muday oo xididka uu ka qaatay faleenbadii wax dhibaato ah oo soomkii yani taas ay gaarsiinayso ma lahan maxaa yeelay sharcigu wuxuu ku leeyahay manfad maftuuxa waa in qofku uu wax iska geliyo markuu meel furnayd oo ilaahayba hore u furay uu qofku wax isaga shubo ama uu wax iska geliyo markaas way marka soomku uu ka burayo ama qofka sooman dhiigu iska qaadi karaa maalinta ramadaan maxaa yeelay manfad maftuuxa ma aha meel furnayd ma aha meesha cirbada la gelinayo wuxuu samayn karaa sidaas oo kale faleen buu isku mudi karaa waa is cirbadayn karaa dhiigu iska qaadi karaa waxyaalahaas oo dhan yani soomka nawaaqidkiisii kamid ma aha oo waxyaalaha soomka burinaya kamid ma aha waxaa kaloo muhiim ah inaan isku baraarujino oo nuqdadan iyaduna xiriir la leh ibtilaac maa yabqaa bayna alasnaan suxuurtii qofku uu xalay raashinka uu ku suxuurtay hadduusan si wanaagsan uga luqluqan ama si wanaagsan uusan uga cadayan haddii ilkaha wixii ku jiray isagoo tufi kara oo iska tufi kara hadday ku fakadaan waa gooni isagoo tufi kara oo awood u leh inuu inta iska soo bixiyo wixii ilkaha uga haray oo ilkaha ka galgalay uu laqo oo si toosa uu u laqo soomkii isaguna halkaas ayuu ku buray waxaa kaloo muhiima oo iyaduna inaan isku baraarujino laga maarmaan ah qofku markuu weesaysanayo weesada waad aragteen nabiga sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayhi wuxuu sunneeyay almadmada wal istinshaq in la luqluqdo sankana la daarsado oo biyaha sanka lagu yiraaho ayaa sunna ah laakiin xilliga ramadaanka istinshaqi iyo madmada labaduba sidii ayay sunna u yihiin laakiin waxaa muhiim ah inaadan ku xeel dheeraan haddii laakiin luqluqashadii afkii biyihii adigoo sooman intaad ku shubato qoortii aad kor ula taagtid oo biyihii ay sidaa kuugu fakadaan soomkii waa kaa buri ama sankii aad biyihii gashatay adigoo weyse qaadanaya waad ku xeel dheeraatay biyihii yani biwaasidati manfad ilfam ay kaa galeen oo sidaasay gudaha ay biyihii ay u galeen soomkii isaguna waa kaa buray maxaa yeelay xadiis abu daawuud uu warinayay ayaa nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi wabaaliq fi listinshaaq ilaa an takuuna saa'ima luqluqashada iyo sandaarsiga ku xeel dheeraaw ilaa inaad sooman tahay mooyaane ama haddaad sooman tahay haddaad ku xeel dheeraato biyihii gudaha ay kaa galaan soomkii halkaas ayuu kaaga buray waxaa kaloo iyaduna muhim ah oo masale muhim ah inaanu isku baraarujino ah الاكتحال في حالة الصوم ما بنانتها إلا إن كوشو أو إن كل مرصده قفكو يسوع صوما جوابته وها ويبنانتها محايا لي إن كوشا ماشان أياد مرين مويه واحد جودها وجود بيا أما علاش الجوفك وجود بيا معها تاسي مركب ويبنانتها وحكى له سيدا سوكله مهمة أيضنا إن نسكب براروجينو الحجامة
الحجامة في الصيام قفك أسوغو صومن يعني ما استوبي كرا أسوغو صومن ما استوبي كرا أسوغو صومن واستوبي كرا قفك أما حديث كده هي أفضل الحاجم والمحجوم كي لا توبي إيه كي توبي لبضو بصومك وكبري والنبي كيري صلى الله وسلم وبارك عليه إمام الشافعي وحو عديي حديث كاس إنه منسوخ يهي أولا نسخي أو حديث كلا وكدن بيي احتجب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم حديث كاس الدن بيي النبي هو استوبي إساقو صوما marka taas xadiiskii hore waxa nasakhay xadiiskan kale ee ka dambeeyay ee nabiga ficilkiisa uu ka sugnaaday sallallahu alayhi wasallam nabigu inuu istoobay isagoo sooman toobintana waxa macnaheedii ah dhiig iska qaadida ayadana way banaan tahay waxa kale oo banaan qof dhaawaca inaad dhiig u shubto adigoo sooman maxaa yeelay dhiigga marka laga shubayo xididkaas cirbad laga gelinaya manfadkii maftuuxa sankana laga gelin maayo dabadana laga gelin maayo cirbada manfad maftuuxa laga gelin maayo manfad غير مفتوحه او من طريق العضلات ومن طريق يعني المنافذ غير المفتوحه ayaa dhiigga laga qaadi marka qofku haduu sooman yahay isaguna waa sidaas oo kale dhiigga uu iska qaadi karaa uuna istoobi karaa taasi wax dhibaato ah oo u geysanaysan malahan waxa kale oo muhiim ah iyaduna nuqdadan inaan ka hadalno dadka neefta qaba oo yani bakhaakha ay sameynayaan bahalkan bakhaakha isku buufinayaan kaas isaguna waa min nawaaqid asiyam soomka waa burinay maxaa yeelay waa wax jawfkii iyo gudihii u gudbaya wuxuu la mid yahay sigaarka oo kale sigaarku isaguna waa nawaaqidu asiyam lama dhahayo wax loo jeedo ma aha waaqiiq oo wax loo jeedo aniga igelaya ma aha maxaa yeelay shayga sigaarka qiiqiisa hadii la aruuriyo qiiqaasi wuxuu yeelanaa cayn wax la arki karo tusaale ahaan qofkii sigaarka cabaya markuu warqad A4 oo kale markuu soo qaado oo markuu sigaarka cababa uu ku afuufo warqada A4 ka ahayd waxaan arkaynaa meeshii in athar iyo raad madow ay yeelanayso sanbabihiisuna qofku saas oo kale ayuu u madoobaan oo dhaawac iyo dhibaato uu isugu geysan walidaalika sigaarka in la cabo waa xaaraan maxaa yeelay dhakhaatiirtu waxay isku waafaqeen oo ay cadeeyeen inuu caafimaadka dib weyn u geysanayo khusuusan sanbabaha uu dhibaataynayo marka ugu dambeysana ay laga yaababa in sanbabihiisa yani ay ka dhalato cudurkan la yiraahdo kansarka marka qofku haduu soomayo sigaarku isagoo xaraam ah cabitaankiisa haduu hadana isagoo sooman uu sigaar cabo isaguna waxay kamid tahay min nawaaqid asiyam waxyaalaha soomka burinaya ay taasi kamid tahay waxa jira marka oo iyaduna muhiim ah inaanu isku baraarujino waxyaalo waxa jira soomka aan burinayn laakiin haddana ka baabiinaya ajirkii soomka ka baabiinaya waxa kamid ah sida hore aan u soo qaadanay farakacayaarka haweenka xaaska la farakacayaaro maalin ramadaan dhunkooshada la dhunkoonayo maalin ramadaan xaaska la dhunkoonayo ayaa kamid ah soomka nawaaqidkii kamid maaha laakiin waa makruuh ajirkii iyo khayrkii iyo barakaadkii iyo nafaxaadkii soomka aad ka heli lahayd ay ka baabiinayaan waxa kale oo makruuhaadka soomka kamid ah calalinta yani cuntada inaad calaliso oo si aad dhadhankeeda u dareento hadhowna waad soo tufiyo ma laqaysid waa karaahiyo ilaa laakiin waxa shariicada islaamku ay ka soo reebtay gabadha hooyada caruurta aan soomanayn u karinaysa qadada hooyadiina ay sooman tahay caruurtiina aysan kala garanaynin cuntadu inay bislaatay iyo inay dhadhamaysay in kale aysan kala garanaynin waxa u banaan hooyada inay u calaliso oo cuntadii dhadhankeedii markay dareento ay iska tufto haday laqdo soomki waa ka buri marka taas oo kale hooyada daruura ahaan yani karaahiye maaha inay caruurteeda ay u dhadhamiso waxa kale oo kamid ah sidaas oo kale waxyaalaha makruuhaatu siyaam kamid ah cadayga bacda zawaal yani wixii ka dambeeyaba duhurka wixii ka dambeeya in la cadaysado waa karaahiyo sida uu qabo imaamu shaafici rahimahullahu tacaala waxa kale sidaas oo kale ku tegay oo sidaas oo kale qaba taabiciga la dhihi jiray Cadaa ibn Abi Rabah ee ardaygii Abdullah ibn Abbas ahaa
مفسر كي ويناية تابعيها لديه جري مجاهد ابن جبري تابعين تي صحابة قيبة كميدا وبدن وحي قبان إن عاديقا ظهر كوحي لقب بالله بابا ظهر كهدي لقارو مالي رمضان وكراهية هي أيقو مركز الدليشناية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه بخاري مسلم أي كورينيين oo nabigu uu ku yiri sallallahu alayhi wasallam la khuluf fami saa'im adyabu inda Allah min riihil misk yani hayaabada isku gaadaamaysa afka qofka sooman hayaabadaas ilaahay uu ka jecel yahay miskiga midka ugu uduga badan ilaahay uu ka jecel yahay marka imaam shaafici dadka ku raacayba waxay leeyihiin xadiiskan waxa laga qaadan khulufku wuxuu dhashaa leeyihiin bacda zawal زوالك بعد ظهرك كبعدي أي حيابة أفكا يكون على ولذلك ما دام إلهي أكتسا لو جت عليها حيابة إلا الزوليو وكراهيو وحين قياس قادنا يعني ديك قفك الشهيد كا قفك الشهيد كا الجهاد ككل انتي ديك سلما أقول إلا ما يرو يسوي ديك أوريو وديك بن آدم كقرن وياهي أو أوريو هذا يا الزولين اللي قفك الشهيد كا ديك لماذا إلهي أكتس قال كيه إلهي أكتس أيو قال كيه marka waxay uga qiyaas qaateen hadana dhiigii shahiidka waxa kale oo sidaas oo kale karaahiye ah oo laakiin soomkii aan burinaynin aflagaadada qofka isagoo sooman xanta waxyaalahaasi soomkii ma burinayaan laakiin ajirkii baabiinayaan xantu iyadoo xaraam ahayd cayday aflagaadada oolba xaraam aha soomkana waa ka sii daran waa xaraam yani aad u sii daran laakiin soomkii yani ma burinayaan waxaa kaloo iyaduna muhiima inaan isku baraarujino manduubaat as-soom waxyaalaha soomka loo sunneeyo waxaa ka mid ah suxuurta qofka sooman yani si kasta oo uu berri u soomi karo oo u adkaysan karo gaajada iyo haraadka waa cibaado suxuurtu waa nuqda yani muhiima inaan isku baraarujino suxuurtu ma aha caado iyo habdhaqan waa cibaado walidaalika hal galaasoo biyo baad cabtide isku day inaad suxurato maxaa yeelay nabiga sallallahu alayhi wasallam wabaraka calayhi xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen ayuu wuxuu ku yiri tasaxaru fa inna fi suxuuri albaraka suxurta maxaa yeelay suxurta baraka ayaa ku jirta rasuulku sallallahu alayhi wasallam wabaraka calayhi waxaa kaloo sunnooyinka soomka ka mid ah in suxurta dib loo dhigo ilaa qadar 50 aayadood laga akhriyo oo kale ayaa aadaanka salaada subax iyo suxuurta nabiga u dhaxayn jirtay sallallahu alayhi wasallam baraka calayhi suxuurta marka in dib loo dhigo oo aan hore laga suxurano yani 7 saac iyo 8 saac 9 saac aan la suxuran ayaa muhiim oo ilaa 9 saac bar ilaa 10 saac in la suxuurto ayaa sunna ah oo suxuurta dib loo dhigo waxa kale oo sunna ah afurka in la dedejiyo oo nabiga sallallahu alayhi wasallam baraka calayhi wuxuu yiri la tazaalu ummati bi khayrin ma ajjalu al-ifdar وآخر السحور حديث الإمام أحمد ورناي ومضيدو خير كما زوليان انت أي أفرك أي ددجينيان سحورتنا أي دب أي أدغيان مركا أفرك إن لددجيو مركا الله بصدق رحدو إن دعدو سحورتنا دب الله دغو أيا سنة وحاكا لو سنوين كميدا إن لدعيستو مركا لا أفريو قفكو مركو أفرو إنو دعيستو أيضنا واسنو وقفكو وحو كدعيسان وحوليه اللهم لك صمت وعلى رزقك أفضرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى إله أديك دعاء معنيه هذا محيتهاي إله أديك قدرتها أيان أصومي إرزاق الدادين وانكو أفري أنكي وإيقاتي أنكي إيقابي فضلك يا رحمة هذا حدددي إله حدددي ويقوين أجركينا وسقنادي إن شاء الله تعالى دعاء سنو كد عيستو أيا سنة قفكو مركو أفرو محيالي أبو داود أيا سنن كيس الدعاء كوريي وحكالو سنة إن لبديو بش رمضان صدقة تلاوة القرآن الكريم قفكينو صدقة بديو قرآن الكريم كان آخر كيس وبديو محيال رسولك صلى الله عليه وسلم وبارك عليه أيا سداس أهانجري oo quraanka akhrintiisa iyo sadaqada ayaa cibaadada nabiga sallallahu alayhi wasallam wa baraka calayhi aad ugu badnayd waxa kale oo marka muhiim ah oo aanu ku soo gabagabeynayna insha Allah ta'ala xagga yani qadaha iyo fidyada ahkaam khusaysa qofku hadduu musaafir yahay ummadana waxay ku ijmaaceen ama culimadana ay ku ijmaaceen qofku hadduu safar uu galo waxa u banaan inuu iska afro
maalmaha uu afuray laakiin dib inuu ka soo qadeeyo ayaa waajib noqonaya laakiin safarka waxaa muhiim ah ma aha hadda muqdisho aanu joognaa markaan muxaadarada hadda akhrinayno ma aha inaad yacni u safarto ceelasha biyaha intaad gaartid ama afgooye aad tiraa afgooye aad safar tiraaho afurahay waa in ugu yaraan 90 kilomitir meel jirta safarkaagu uu yahay ama diyaarad ku safar ama gaadiid ku safar ama lugee waxaad doonto samee haddiiba 90 kilomitir meel jirta aad u safrayso waxaa ku bannaan inaad maaragtaa iska afurto dibna markaas aad ka soo qadayso laakiin sida wanaagsan markii aan fiirino haddii soomkii dhibaato weyn uusan kugu hayn oo aadan ku dhibtoonayn waxaa ku fadli badan inaad iska soomto xataa adigoo musaafira haddii laakiin naftaada uu dhibaato u geysanayo soomka uu ku dhibayo waxaa markaas fadli badan inaad afurto inaad ku afurto hadhowna qofka waxaa laga rabaa dib inuu soo qadeeyo laakiin wax fidyo ah oo raashin ah lagama rabo dadka waayeelada ah qofku hadduu waayeel yahay oo soomkii uusan awoodi karin oo dhibaato uu kala kulmayo hadduu soomo waxaa sharciga islaamku markaa uu jideeyey in laga bixiyo fidyo waa raashin maalin walba hal koombo ama qamadi ka dhig ama ganley ama bariis ama digir ama masago wixii ku fudaada halka yacni laga bixina waxaa kaloo qofka waayeelka la mida qofka xanuunsanaya xanuunkiisina dhakhaatiirtu ay caddeeyeen inuusan ka bogsanaynin oo uusan ka raysanaynin isagana waxaa laga bixinaa fidyo qofkii marka xanuunsanaa haddii xanuunkiisa uu rajo leeyahay oo dhakhaatiirtu ay caddeeyeen in xanuunkani uu rajo leeyahay oo laga bogsoonayo isagu waxaa lagu leeyahay qado oo kale ah qado kaliya lagu leeyahay maalintii uu caafimaado ayuu dib u soo qadaynaa maalmihii uu afursanaa haddii laakiin qofku xanuunkiisii uu ku dhinto oo fursad uu ku qadeeyo uusan helin xukunku muxuu noqon haddii qofku fursad uu ku qadeeyo uu waayo xanuunkii intuu sii dheeraado jiradiisii uu ku dhintay falaa qadaa walaa fidya wax qadaana laguma laha wax raashinana lagama rabo maxaa yeelay fursadba ma helin uu ku soo qadeeyo amaa qofkii xanuunsanaa haddii ilaahay xanuunkii uu ka caafiyey oo siduu qadaha dib ugu dhigayo waad soo qaday doontaa isagoo leh isagoo jaanis uu ku soo qadeeyo uu soo maray ayuu sidaas uu u geeriyooday qofkaas hantidiisa hadhow hantidiisa in fidye laga bixiyo ayaa waajib noqonaysa yacni haddii 30 maalmood oo kale oo bishii 30 ay ku dhamaatay 30 maalmood oo kale lagu lahaa saas uu dhintay asagoo fursad heli kara qofkii oo ilaahay uu caafiyey uusan soo qadaynin hantidiisa waxaa waajib noqonaya 3 koombo maalmihii lagu lahaa qadarkoodii in laga bixiyo ayaa waajib noqonaysa waxaa kaloo bannaan in laga soomo oo maalan 20 maalmood ama 30 maalmood lagu lahaa mana soo qadaynin fursadna uu haystay in yacni qof uu ka soo qadeeyana yacni uu laga soomo iyaduna sharcigu wuu baneeyey marka muxaadaradeennii ama xalqadeennii labaad oon uga hadlaynay fiqhu siyaam halkaas ayaan rabaa in aan ku soo gabagabayno insha allahu tacaala ilaahay waxaan weydiisanaynaa ilaahay ramadaanka inuu naga aqbalo leylatul qadrigana ilaahay uu na waafajiyo ilaahayna kuwa naarta laga xureeyay bisha ramadaan oo barakaysan ilaahay ha nagu daro dhammaanteenna ilaahay subxaanahu watacaala jannatul firdows nasiibkeenna ilaahay ha ka dhigo xusnul khaatimana ilaahay ha na siiyo waddanka soomaaliyana ilaahay subxaanahu watacaala islaax caama allah noo siiyo burburka iyo dagaalada iyo fitanta iyo dadka soomaalida quluubtoodu kala jeestay oo isnacay bedelkooda ilaahay naxariis iyo isjacayl qulubta soomaalida ilaahay subxaanahu watacaala ha ka buuxiyo ilaahayna xaqa soomaalida allah ku mideeyo dowla oo islaamka yacni kor u qaada oo diinta waddanka ku tadbiiqisay ummadana ilaahay subxaanahu watacaala waddankana noogaga dhaliyo hada wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh